أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاك الله خير وخير الجزاء. إلهي هذا قرآنك عين وانفعه. إلهينا الشيخ أبال إيو أجر انت وهكسي ميزاتك حسناتك ميزانك حسناتك الله قدره. كنتي قولك سلامك إحلاشا إلهي قرآنك سوك غشيكي وأرن آذيات أقيم بضن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بإلهي. أنت وأرماء عجيب أوي كتيرة طب كلا قنا وأنا سقونين ومتضمن كيمت بلغيا وإن يسكون سدان وهذا إلهي نحضر أورد جوانك يا رحمة يا إسشعائل يا إسفهن بل جواد يويلكو أي لوهر والد ayaga iskaga kalsoonaadaan. taasna waa mid aayadaha quraanka Ilaahay noogu sheegayo. sidaa darteed Ilaahay maartay mawada iyo raxma qoys walba muslimiina dhexdooda ha dhigo. waxaan uga gudbayaa insha Allah ta'ala aan mikrofoonka ku wareejin doonaa sida dhaqanka iyo maartay dhaqanka Soomaalida inagu dhaqano insha Allah ta'ala odayaal dhaqameedka kuwaas oo gabadha kala dooni doona insha Allah. waxaa doonida gabadha yeelan doona dhinaca qoyska wiilka uu ka soo jeedo. waxaana dooni doona gabadhaas Muno Maxamed Cali oo loo dooni doona insha Allah ta'ala Yusuf Ali Xamud. waxaan mikrofoonka ku soo dhaweyn doonaa insha Allah gabadha uu dooni doona adeer Mukhtaar Geesay Isaaq oo odayaal dhaqameedka ka mid ah oo u dhibi doona mikrofoonka insha Allah. soo dhawaada. bismillah. Assalamu alaikum. bale maqla waan iska cod gaabnahay hal laga aado. marka koowaad Ilaahay mahad iska leh oo halkan isku keenay xafladan quruxda badan ee guurka maanta isku keenay. Ilaahay weynaa waaxidka ah mahad iska leh. Ilaahay mahadda kadib waxaan muxuu ahaa salaan u jeedinayaa dhammaan dadka yimid halkan ee xafladan quruxda badan ma arko isku yimid oo rag iyo haween bare dhalinyaro iyo waayeel dhammaantiina waa idin mahadcelinaa. waa idin salaamaya marka koowaad. salaan kadib waxaan codsanaynaa in nala siiyo gabadha la yiraahdo Muno Maxamed Cali oon u doonayno Yusuf Ali Xamud. waxaan doonaynaa dadka ehelkeeda ah oo walaalaha ayaga ah inay na siiyaan gabadhaas yaan doonaynaa. wabillahi tawfiiq wa salaamantiin. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدير أبو محسن يهي كبدا أودوني
إن شاء الله وجوابته وحنكسونا لنا عكلة أكفر ديا إن شاء الله تعالى قبلنا فمل كذا وحاجة قبلنا جواب دونا أيضا الميكروفون ككوري دونا إن شاء الله سلطان محمد بدء إن شاء الله سلطان سودو. بسم الله. marka hore dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib sidaa uu dhigaygu sheegay runtii farxad ayay noo tahay inaad muxuu ahaa aqbashaan anoo ku hadlayna magaca qoyska cusub ee dhisayno ayideen inaad maanta timaadaan markhaatina tihiin runtii sharaf ayay noo tahay idinkana ilaahay mataqaanaa ajri xasanaad ka siiyo imaatinka aad timaadeen. intaa kadib runtii waxaa farxadaya maanta inaan maxamed dhinaciisa istaago oo mar labaad gabadhiisii uu kusoo tabcay taas maanta haddana gayaankeed ay ka xolatay ragga inaan maanta u istaago oo aan siiyo marka runtii farxad bay tahay inaan maanta kasoo qayb galo xafladan. marka intaa kadib kolley ninka ugu geysan balay waa ninka soo dhiiray gabadh ku weydiista laakiin waxaa ka geysan balay ninka gabadh sidaa maxamed kusoo tabcoo kale ya guddoonsiyaa kasii geysan baa layidhi marka waxaan malaya geysnimada anaga hori doontaay. intaas waxaan rabaa weydiisigaadna weydiisateen anoo ku hadlaya qoyska dhammaan eheliya qaraabo reer maxamed cali mataan gabadha aad noo weydiiseen muna maxamed cali mataan khaasatan aad noogu weydiiseen yuusuf cali xaamud waan idin siinay. ما شاء الله الله بركة يا سلطانك أليا بنو فرح سنة هاي runtii waa wax lagu farxo waxa la isasiiyo waxa ugu farxada badan waxa weeye qof bini aadana oo inta lagu tabcahayay in lagu siiyo waxaan mar labaad ku celin doonaa insha Allah taala adeer Sheekh Mukhtaar Geesay inuu haddana weydiisto meherkii. bismillah waxaan codsanayaa ama codsanaynaa walaalaha iyaga gabadha na siiyey aad iyo aad baa horta mahadsantihiin. qof bini aadan ah qofkii ku yidhaahdo waa kuu siiyey abaalkiisa ilaahay baa gudi kara waad mahadsantihiin abaalkiinina ilaahay baa gudi kara. waxaan mar labaad codsanayaa ama aan idinka codsanaynaa inaad gabadhii nagu meherisaan gabadha ah muna maxamed cali oo loo meherinayo yuusuf cali xaamud. mar labaad waxaan doonaynaa in nagu meherisaan wabilaahi tawfiiq. ما شاء الله waxaan ku celinayaa suldaanka iyo insha Allah familka inay intaana isku gaar raaciyaan. mar haddaan gabadhi ku siiyey meherkii kaala xabalayd kale meherka ugu raaciyay insha Allah. ما شاء الله waxaad sugtaan waa meherkii iyo insha Allah adeer Sheekh Mukhtaar ku celinaa mar. bismillah mar labaad iyo mar saddexaad aad waad u mahadsantihiin. waxaan u istaagay ama aan soo celinayaa mar labaad haddana aan muxuu ahaa wareejinayaa gabadha muxuu ahaa xushmadii ama muxuu ahaa sooriyadii ducada ahayd laisku lahaa tolka lahaa ehelka lahaa baan maaragtay yaan guddoonsinayaa in laygu guddoomaan jecelahay wabilaahi tawfiiq. waan guddoomay ma sha Allah. alright hadda waxaynoo dhiman waa insha Allah meherkii iyo hawshiisii insha Allah waxayna ugu xigi doontaa qadadii oo iyadana wadada kusoo jirta insha Allah waxaa weeye meherkii baa laga gelayaa insha Allah hadda waan soo wareejinay sheekhan ku wareejinaya. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله
أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله عاجله وآجله دقه وجله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. الحمد لله إخواني في الله ربي أيام هض أوردني أي أصغناتي إلهي إن سوى فتشيي إن نكسو قيب قالو حفلة آدي آد كأقرح ربضا نورين إيسا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآيو إساقا إن أمري أو أين وضضا كغضيانينا وحو أرنجري تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم والجورسدة وليبا واحد جورستان دمرك كوودا تشعل رجودا المضنا بدن وايو أمضها أيان مارنت قيامه ترادا فرها بدن أن أوفانا يايه وحاكلو أورنجري يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أو أن نورين إنه وحكروا النبي عليه الصلاة والسلام آد وقدق علمي روح إنو يلاهدو وان سوفيين أو واحد جور كلا يلاهدو رمب وان كجوري وان اسكدين الله أقوئي تاسنو نوغدقي وحديث كي صحيحين كسقنا أفرتين نين جوري النبي عليه الصلاة والسلام تجي نين يري أنو الضمر كبوان كفوجان نين يري هلي بود دوان مايو نين يري هبين بسيحان مايو نين يري أنو الصون بان وتاجنان وأفور مايو وكعروض وحو يري أنا الله إذن كو أقان إذن كنا عبس بدن سدا صيتهاي وان جورسن وان سيحن أو وان تكن وان سومي أو وان أفوري ومن رغب عن سنتي فليس مني سنتي سيبك بك مركا وددا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه نورين إنه عبادته وإنه قلبك وذكشنه انت كذب وحين هل كان أفردنا إن ولكن يوسف علي حامد هرينو ولاشين منى محمد علي أو مهر كيدو يهي $7,000 مخراتية ديدونا انتي ناس ودن بقاد كتهين سيجار أهانيدنا شيخ عثمان إيو شيخ خضر وحابنا رجل مضان كل إيران مايو شالي هل كان فرديو أيان قبل إيادنا أقوم مهريي ويل صوماليين وشالي إيا ساعتا مدة هدا أنكو قياسيو إلى 4 سنة أيان هوشن مهرينتا إيو كقيب قل كيدا انت بدن أن سمين جيري أو مكة أي أبضنيد حرسها الله ما أنت مركا وحا أرنتن سيقوني أي إيتابطي أو سيقوني أتجن كيغا يا مسكح ليدا أسو جيريسي أرن آنان هوري أسو أركي أرنتا سيوحا ويه waxaan ugu arki jiray markii aan sidan oo kale u meherinayno inaanu nidhaahno gabadha meherkeedu waa inta isaga oo dib laga siin doono xaalan fi dimadiisana ay saaran tahay ma aanan horay u soo arkin wiil rageed yiraahda gabadha meherkeedii waa inta haddana waan siinayaa saacada la joogo Allahu akbar Allahu akbar runtii waa arrin mudan ku dayasho markii xalay la ii sheegay arrinka aniga dib isu fiiriyay waxaan xasuustay islaamahayga Allah ii barakeeyo midnaba inaan ilaa hadda siinin rag badan oo ila mid baan ma arrinkaas ma jiraa
waayo bay-ada aan ku soo kornay iyo dhaqankeennii horaa wuxuu ahaaba haweenayda la yidhaahdo naamiherkaagii hoo inayba shakido itraatolo muxuu soo daba wada warhaysa adigu iga hay saasay odhan jireen marka wa ficlan arrinta saxda ah ee sunnaha ah ee inaynu noolayno mudani tan weeye alla wuxuu leeyahay wa aatu nisaa saduqaatihinna nixlah mujaahid iyo keyrkii fariida bay ku fasirayaan bacduhumna waxay leeyihiin tayibatan bihaa nufuusukum idan shayga meherka ah in la siiyo gabadha mutaysatay waa waajib sharciya oo diini ah ruuxu markaa haddii uu dib dhigo uu gadaal ka siiyana wuu leeyahay hadduu soo hormariyana facala khayran arrinku dayasho mudan uu sameeyey intaa waxaan uga gudbayaa meherkii bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani araxiim zawajtuka wa ankaxtuka muna muxamed cali biwakaalati waliyiha iyaaya bimahrin qadruhu biqadri mehruhu 7,000 oo dollar muqadaman قبلت زواجها ونكاحها بالمهر المذكور. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ina baray ruuxa markii sidan oo kale arrintani ay ugu dhacdo in loo duceeyo duco gooni ah. dadkii hore waxay yaqaaneen duco iyagu aanan hadyiga nebiga ahayn. waxay odhan jireen carabtii hore bilyumni waalbaraka wa shiddati alxaraka waaldafri cinda almacraka. macnaheeda waa la garanayaa, waa u malaynayaa. bilyumni waalbaraka, allaha isku kiin barakeeyo weeye. wa shiddati alxaraka, waxaanu kuugu ducaynay bay odhan jireen yacni xarako fara badan, iyo waaldafri cinda almacraka, inaad macrakada iyo dagaalka ku guulaysato. saas iyagu odhan jireen. laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina baray inaynu inagu nidhano baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wajamaca baynakumaa fii khayrin. kadib baa wuxuu u dardaarmi jiray sawjka